الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلهي جل وعلا وحقفك بالآدم كهو أبوري إنه يساق عباديستو عبادتنا ووحو الباه وإلهي وجعليهي وكمذا فللك إيو هذا اللذا إلهي لو قد وادو قف ممكن يتو الدنيا نشوفه وحلو بهاي إنه كررصده أعماش صالحة إلهي سبحانه وتعالى وقد وانايو كونه لايو جنوين كيسا يرها لديسا عمرك قفك بلا آدمي وكوكا ذرا يدل كنت شيسو وعمرك قابويان خاصة أمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم مركا الله قياسه كي هوره أو مدلر نولان شري النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث كويري أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يجاوز ذلك أبو النبي صلى الله عليه وسلم عمرك أمد يدوا أنت أودا حيصل لحن شر إلا تدبات شر أنتو ذا تضواتا دافتانا أما عمرك عسير دافتانا وإن يرويان لكن أمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلهي نقول شرفي إن أمدي سينا هاي عمرك أمدني سيدا النبي صلى الله عليه وسلم وعديي وحا أقول حيسا أعمار تودو ما بين 60 إلى 70 قف بلا آدنا وأق إن عمرك قفك بلا آدمك وإنت هاي محا مركها لقدبون وحا لقدبون إنه مددا قابا إلهي سبحانه وتعالى هدي نو قدربا إنه تدباتا قارنو أما وإنه حوغان دافنبا إن انتاسي إنه كده دالو سيدي وقفكو عبادة إلهي وبطلها نينا نصاحبه إنه اسكو مسجد أهين مريكان نين فلسطيني أيها ضفة الغربية مركا وحو قاري لو اللي احنا جربو قاري مركا هو حلقا إن شقادة لقاقا فريستا مريكان دي قفك هنا بنشنا وقاضاني أو تقاعد بوليه مركاسي نولشي يسيبو وقيبيي نين آدو سو شقيين ووها مساج كاسو فرديا مركا waxaan ogaaday inuu ninkani maalin walba quraanka umar dhameeyo كل يوم كان يختم القرآن maalin walba quraanka uu dhameey jiray waxa weeyaan saamaan baan ku yiri tawfiiq tabiib baa loo nisbaa tawfiiq bal ka waran xaaladaadan wiil maxay haray buu yiri xadiiskan buu soo dirishday oo yiri لحن جير بان هاي نبي صلى الله عليه وسلم وحيلي أعمار أمتي ما بين 60 و70 مركا وحنا الدوية سكسي مشغوليو أيام بنمشي يقولين يعني قفكوا إلى هاي فهم صح السيو إلا إن الدوية سيدة مرة أرطون معها موين يكون شرتم حد أتكح دينيسو أو نلش عادي عمر جاي أتكتشرنيسو والله ده هاي إما كحلقي قبرك أنجلا يبدو حلقين الدنيا كتجي يبدو لكن هدي العبادة إلهي أعماش الصالحة عمرك أنت كهدي أد كد داشو ونفتنا كد لسر عبادة إلهي سبحانه وتعالى وحب ضبك صينية مير سرنا وتجارسة لور أرمود بن دنيا إن اللي داعو عمرك أنقفك بلا آدم جاه لما أنتي سنتك آخر كيسة أسبوع آخر كيسة انتبه لما تكاسين الكفاية السنوية وعمرك آخر كيسة سنة وقفها دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحولي إنما الأعمال بالخواتيم خاتمة ونكسنهم با أيام ميشن إن laga xusaya oo qofka bini aadamigana anfacaysa way qof inta soo cibaadaystay hadana fidnoobay aakhir umrigiisii wuxuu doonaa ku fidnoobay ama maal ku fidnoobay ama siyaasad ku fidnoobay ama qabiil ku fidnoobay ta cibaadadiisii quraan akhriskiisii diintiisii waligu ku soo daalayay waa hal baad ugu lisay wal ciyaad billah marka aakhir umriga waliba qofku markuu weynaado waa inuu xusuusto inuu fitanka iska ilaaliyo wax walba oo umrigiisii khasaarinaayo fidneenaya inuu ku fogaado ayaa looga baahan yahay marka waa qofka bilaadmigu aynu ogaano in aakhir umriga lagu dadaalo
qof sagaashan jir macasi ku soo jiray hadduu sagaashan jir ku toobad keeno khayr badan buu leeyahay sheekh islaam ibn taymiyyah raxmatullaahi calayhi ayaa wuxuu yidhi qofku markuu toobad keeno toobadiisaasi wuxuu ku noqon karaa dee qof meel sare gaaray rubamaa min almuqarabiin kaba uu ka mid noqdo marka inama alacmaalu bilkhawaatiim aakhiru cumriga weliba marka gabowga ay soo muuqato calaamaadkiisii ama qofka xanuun lagu ibtileeyo xanuunkaasi uu ku dareemo in quwadiisii ay daciiftay waxa loo baahan inuu aakhiro u jeedsado sanadka waa 12 bilood hijriga qofku xitaa dadka saalixiinta ee wanaagsan laga yaabo inuu qofku inta hore inuu iska soo yar daalay oo adduunyo ku mashquulsanaa laakiin ilaahay 4 bilood ee sanad walba ugu dambeeya waa 4 bilood cajiiba waa ramadaan iyo shawaal iyo dilqicda iyo dilxijja waa 4 bilood ee lagu khatimaayo sanadkii 12 bilood lagu khatimaayo ramadaan weyn oogno leelatul qadr baa ku jirta leelatul qadr khayr min 1000 shahr oo ilaa dhowr iyo siddeetan sanadooda bal qiyaas qof iska soo yar daalanaa sanadka intii hore oo habeenkaa la waafajiyey oo cibaadadu habeenkaa cibaadaystay ay ka badan tahay ba ka fadli badan tahay cibaado la cibaadaysan lahaa dhowr iyo siddeetan sano ummadeennana dee acmaarteedu way gaabantahay laakiin ilaahay fadligaa ina siiyey shawaal baa ku soo xigta oo imanka dhammaad ah oo 6 shawaal la soomay maxaa ku soo xiga haddana waxaa ku soo xigay dilqacdaa ku soo xigta oo ashhurul xurumkii ka mid ah dilxijja ayaa lagu khatimayaa sanadkii oo ashhurul xurumkii ka mid ah oo xajkii la gudanaayo oo 10 maalmood ee dilxijja ugu horeeya ay sanadkoo dhan ay ka wada in fadli badan yihiin maalmaha qofka cibaadaysta 10 maalmood waxa weeyaan waa fadliga lama qiyaasi karaayo marka macnuhu waa maxay sanadkii haddaad soo yar gaabisay ood mashquushay oo cibaadadii aad samayn jirtay aad ka gaabisay 4 bilood ee sanadka ugu dambeeya hadduu ilaahay ku soo gaarsiiyey cibaadada kor u qaad oo fiiro gaara ku hay weliba imanka dee ramadaanna tagtay in shawaalkiina waxba kama harin inaynu soonnayna ilaahay naga aqbalo intay waxu harsantay imanka ka gaarsiiyaan 2 bilood oo soo socdaa waa min ashhurul xurum ashhur 2 biloodna cibaadada ilaahay u jeedso camalka saalixa u jeedso qiraa'ada quraanka badi tasbiixaadka tahliilaadka badi taasi waa sanadka dhamaadkiisii usbuuca dhamaadkiisa usbuuc walba ilaahay wuxuu ku khatimay maalinta usbuuca ugu fadli badan oo yawmul jumca maalinta jimcuuna sida culimadu hadaan muslimiintu 3 ciidood bay leeyihiin 2 ciidood oo sanadkiiba mar soo mara waa ciid al-adha iyo waxaan jeedaa ciid al-fitriga iyo ciid al-adha usbuuc walbana ciidan baa ku jirta oo waa yawmul jumca maalinta jimcuhuna fadaa'il fara badan bay leedo hatta ibn al-qayyim zaad al-ma'aad ka hadiy an-nabi sallallahu alayhi wasallam fi yawm al-jum'a uu kaga hadlay in suuratul kahf al-akhristo in imaamku uu ku tukiyo in dadka salaada subax suurat sajda iyo suurta halata al-insan إلا بتصوها بين كاي مالتا جماعة سلي النبي صلى الله عليه وسلم إن صدقات ربحصه وما نخير بدن ما أنت أسبوعي وخير بدننا وحلو سو جبيني أو صعد وضم بيسويه ولا رجينا إن ساعة الإجابة كشرتو ساعدها ودحيا عصر كمركل تكوده إلا عيت الله سنة تدكي صالحين تهاي أهل الله جاها waxay u gaariyeen jireen cibaadada ilaahay buu gaariyeen jireen dhikri iyo duco iyo salliga nabiga sallallahu alayhi wasallam marka bal eeg umriga qofka bilaadanka umriga oo dhan ha noqdo ama sanadkii ha noqdo ama usbuuci ha noqdo ama saacada maalinta jimcaha ugu dambaysa ha noqotee mar walba waxa la dareensiinayaa inaynu umrigaaga inta aad ka joogto ama sanad ha noqdo ama maalin ha noqdo inaad aakhirka aad iyo aad ugu dadaasho aakhirka aad iyo aad ugu dadaasho إلهي إخواني خير كينا وافجيو اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما حيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا
ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا ولوالدينا ولوالديهم ولمشايخنا وعلمائنا ولمن له حق علينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد أولادنا وأولاد المسلمين وهد بناتنا وبنات المسلمين. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم راشدين. اللهم اجعلهم قرة أعين لآبائهم وأمهاتهم يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخوان المسلمين في غزة وفي فلسطين. اللهم ارفع عنهم البلاء. اللهم كن معهم. اللهم أيدهم بنصرك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك باليهود ومن شايعهم. اللهم عليك باليهود ومن وقف معهم. اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الكافرين. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وفك أسر المسلمين بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.